بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توداش شرفت له waxaan joognaa suuq kamid ah suuqyada ugu waaweyn ee magaalada Maalmo. barnaamijkeenu maanta dabcan wuxuu ku saabsanaan doonaa xaaladda iyo faafka coronavirus ama COVID-19 oo ku yeeshay dhaqaalaha dalka Sweden, khaasatan magaaladan iyo dukaamadii. waloona nagu talagelinaan xog badan oo dibli ah idin siino. haddana waxaan tagi doonaa dukaamadii inaga oo dukaan iyo sidoo awal ahaan jiray iyo sidoo maantayay iyo saacadaha ay furan yihiin. dukaamada qaar waxaan arki doonaa gebigooduba xagga awal ka shaqayn jireen 8 saacadood iyo in ka badan ay shaqaynayaan oo la soo shaqo tagayo in ka yar 2 saacadood. dukaamada qaar waxa la furayaa 12 duhurnimo, waxa la xirayaa 2 duhurnimo. waa dhibaatada uu soo kordhiyay cudurka coronavirus. xaggani waa Emporia suuq la yiraahdo, waa suuq aad u weyn oo laga dukaamaysto. waliba waxa aad u xiriiriya labada dal ee Denmark iyo Sweden oo labaduba yimaada oo ka dukaamaysta. waxaad arkaysaa siyaasadda looga dhisay xuduudka ama barta ugu dambaysa ee dalka Sweden laga galo in ay tahay siyaasad dhaqaale oo ah magaalada Copenhagen oo dacalka ku haysa dhanka koonfureed ka xigta oo biyeer u dhaxayaan in laga soo tallaabo isla barta dadku ka wada dukaameystaan labada dal la yimaadaan. sanadkan 2020 waxaynu awal maqli jirnay oo hore u taqaaneen sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadima leeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa. xagga dadka qaar odhan jireen ilaahu sanadka tagay dambaabiridiisa naga nabadgeli, ka soo socdada haraatidiisa naga nabadgeli. طبعا waxaynu oran karnaa sanadka 2020 iyo sanadkiina dhaafay 2019 dambaabiradii kii hore iyo haraatidii kii dambe ayaa adduunka cuskatay. waxa yimid cudur weyn oo la yiraahdo coronavirus oo dilaa ah, isla markaasina adduunka in ka badan nus milyan qof imaka afeeyay, xagga 3 milyan oo qofna adduunka baalkaasi gaaray, in ka badan 4 milyan adduunka ay u dhinteen. gaarigan baarkin dhiganayna imika waxaan soo galnay baarkinka kadib aan suuqa gudaha geli doonaa. idinku wad nala socon doontaan ilaa ay baarkinkeena aan gaariga dhigano ayaan kala hadhin gudahaynu gelaynaa. dasaaseen isku ognahay baarkerinkan waa adduunka wuxuu ka mid yahay meelaha imika laftigeeda horumarka adduunkana uu gaaray. baarkeerina soo socota inka baarkerinka naga horeysa 14 baarkerin baa bannaan. maalmaha qaar hadda waxa balnaanaan jiray 1 ama 2. laftigeedu waxay ka mid tahay dhaqaalaha burburka ama dhaqaalaha hoos u dhacay ee adduun weynaha. way dawladayeen suuqa weyn ee Emporia bartamo galeeyay bartamo gaariga soo dhiganay suuqan oo gudahaan loogu talagalay maalinkii inay yimaadaan ka badan 25 oo qof ayaa maanta dawladayeen waxaan arkaynaa ka yar ama aan farqiga dhacay intii hore loogu talagalay inay yimaadaan. waayo adduunka maanta waxa la marayaa bishii shanaad dad badan waa waqtiga kulaylaha la yimid, waqtiga suuqan waliba inta loogu talagalay uu ka saaysanaa jiray. laakiin maanta waxaan arki doonaa inuu ka yar yahay intii u dhoweyn, taasna ay tahay faafka coronavirus ee adduunka gudaha saameeyay. imika waxaan eegi doonaa dukaamada waaweyn iyagu sida yihiin iyo soo xidhayeen la socdo.
وكاس داوديال waxaad arkaysaa dukaamadii oo kuwii caruurta iyo kuwii laga dukaamadeysanayay dema kala qaadayno ay dhamaantood xiran yihiin saacadii marka waa 4tii galabnimo dukaankan ama suuqana waxa lagu xiray 8 caawa in albaabada loo laabo oo la xiro iyadoo intaas oo saacadood ay ka harsantay ayaa shaqaaliin la iska fasaxay dukaankan suuqna isagoo oo sharcigiisu furan yahay ayuu haddana dukaan u xiray dukaankeena ka soo jeeda dukaanka saara dhalinyaradu aad ka xogeeysato dukaankan kale imku furan waa dukaanka shantadeed laakiin qof islaam oo dhex taagan ma jiro taas baa sababtay in hal qof ama de shaqaalihi dhan la iska fasaxo waad aragtaan dukaankan wuu xiray داوديال إنك دكان كان يتسنى سارة هي دكان كلا ألعابته كافيه جيبية وضد يسود أد كافيه لو قاعد بس دا أدنى اللي تحكي أياد واحد أركز الدكان كمان عندنا كتير وسكها فري هاي عندنا أني قلين واحد بلايم كهافرنين كاسي مع الدكان كاسي واحد كان سنية شوف كتقالة شغالها يضل كنا نسوي جهي الدكان لنا وقت السجاد يسكها فرناده كان دكان سارة ودكان لبس ودكان اللي يردوا آدوا قال لبسته الدون كنا عانك قلنا اللي يردوا تشعليه يمكن الدكان كان يروح عليه هاي واحد عيش تم المها قال مركز سديد قاعدوا إن ضد بدنا نقوليش يسا كوسي هرسنات شرين يجوا إسلام مركز سل الدكان منه أو الحدي شرين يجوا ضد جدها وشرين تلف تجد واحد كم تاي واحد لها فاف كورونا فيروس وكينادي وهي داوديال لو قلنا ما شركتنا هي مقولة جناهي والشركة أبل وقعدت هذا موضوع دخلي قبل له شركتها دمان الدنيا شركتنا ويكهر حنا يدو دمان قلب كأردن واحد حنا أنتي كورونا فيروس ما تقولي لا يمكن مدور لما بلاد صدق بلاد تقول واحد أنت هاي شركة أبل تاسي أصلا تاني لما قف أو إلى عليه على مويا دمان شغالة أنتي كله بفصحي تاسي هو يود دقالة يود أيكا بدن هاي واحد الدنيا كله من العدلين إن شركة أبل أنتي اللي يصير شرين الموديل هذا يأخذ كله يصير ساعته بقول كده سناش الرسول دعمين كيني لمن الدنيا كله ويا داوديال ونحن نقاليه كورونا فيروس كل شيء لما يكون لها كل هذا الصدر السائل على الأكل زين شبيه وقول كم تضبط هدي كل كورونا عبر أحد هذا الله هدي وخلنا هذا ما هو هي صدق كورونا هذا تاسو يتحب العيد الله العيد كشا أي نجيب تاسو يتحب لبتدوي دوكا مانتا وسوقني ودوكا كورونا فيروس بربنت ما تقول واحد قبلنا توقع سوق من بوريا يوم تكمل وين إيش الكلام وين أول دوكا يو نقالها من كسر بالجري يوم ما تصير تحي كمو كمالنا وحنا عشان بكسر بالجري دولتنا وحنا لنا شغالها العقل كسر بالجري كروين بكسر بالجري وحيالله ودرن إن أنت دوكا ما جرح ستنا دوكا أكون يجر لدا لدا عيان ودرن كردي guriga ay ku jireen iyo meesha ka galay marka laga yimaado shaqaalaha wali waxaan ku socon doonaa barnaamijkeeni inka soo gabagabo ku yahay 2 iyo 3 dukaan oo ku ugu heer sareeya suuqa Booriya iyo magaalada Maalmo iyo wixii kala qabsan maqaaxiyahan ama meheradahan laga cunteeyo ee ku dhex yaala suuqan waxay hayeen kuwo had iyo jeer iyagu camiran isla markaana dadku ay fadhiyaan qof kasta marka suuqan yar soo meero koobkiisa biyaha buu qaadan jiray kafeegiisu qaadan jiray wuu camirnaan jiray kuraasidana waa la kala sugi jiray meheradan in ka badan waxa ka shaqayn jiray 3 qof 4 qof oo shaqaale ah waxa laga yaabaa maanta sinjibiisha ay barta taalayna tahay